Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barteena barasha shaybaar taas oo uga bartaan waxyaabaha la xiriira cilmiga shaybaarka dib ayaan isugu soo laabanay mar kale waxaan rajeynayaa inaan soo gudbiyo casharadii taxanaha ahaa ee horeed iga barateen insha allahu tacaala please intaan cashirka u gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto channelka maadaama aan dooneyno inaad dhiirgelin inoo noqoto subscribe-taada inoo saarto waa mahadsantihiin dhammaan. Haddii aan u gudagalo cashirka maanta jeclahay inaan idiin soo gudbiyo wuxuu noqonayaa testiga loo yaqaano ESR test. Marka hore ESR test horta maxaa la yiraahdaa maxaase laga soo gaabiyo testiga la yiraahdo ESR ida waxaa laga soo gaabiyay erythrocyte astana sedimentation artana rate erythrocyte sedimentation rate ayaa laga soo gaabiyay ESR sidaa waxaa la isku yiraahdaa marka saddexdaas xaraf ESR test waa testi la diro. Muxuu yahay marka ESR waa nooc kamid ah dhiiga testi kaasoo la diro si loo ogaado saldagga RBC-ga how quickly erythrocytes settle at the bottom of the test tube that contains blood sample. ESR waa testi la diro oo dhakhtarku diraayo si uu ogaado inta uu leeyahay RBC-gaaga saldagga uu sameynayo. Waxaan u wacan inuu diro oo dhakhtarka ku sii xaqiijinayaa inuu jiro waxyaabaha inflammation-ka la xiriiro iyo waxyaabihii la xiriiray qandhada iyo si uu ogaado in ESR-kaagu ama immune system-kaagu ay ku soo kordhaan waxyaabaha foreign substance. Sidoo kale ESR test haddaan definition-ka intaan isugu soo gudubno maxaa loo soo gaabiyaa xarafyadan ESR hore u soo sheegnay waa erythrocyte sedimentation rate. Sidoo kale SED-na waa loo soo gaabiyaa sedimentation rate. Sidoo kale magacyada badan oo loo yaqaan ayaa jiro Western green sedimentation rate-na waa la dhahaa ama Western green method. ESR almuhim waxaa yahay type of blood test kaasoo lagu cabiro how quickly erythrocytes settle at the bottom of the test. Marka sidoo kale ESR waxyaabaha maxaa la dhahaa la xiriiro inaan ogaano marka aan dooneyno waxa ay tahay normal testiga ESR-ka qofka bani'aadamka ah goormuu normal noqdaa goormuu abnormal noqdaa. ESR testiga sidoo kale horta waxaa lagu cabiraa waxa la yiraahdo halbeega lagu cabiro waxaa la yiraahdaa millimeter per hour ama mm/hour millimeter per hour. Qofka bani'aadamka ah normal test ESR marka laga rabo dumarka da'doodu ka yar tahay 50 sano waa inuu ESR-kooda noqdaa 0 ilaa 20 mm per hour ama millimeter per hour. Ragga da'doodu 50 sano ka yarta ayagana ESR-kooda waa inuu noqdaa 0 ilaa 15 millimeter per hour marka ESR test ragga iyo dumarka way ku kala duwan yihiin. Difference-gana wuxuu yahay dumarka ayaa ka badan 5 raggu waa 0 ilaa 15 dumarkuna waa 0 ilaa 20 waa markuu yahay testigan ESR-ka normal range. Dumarka da'doodu ay ka badan tahay 50 sano ESR-kooda waxaa laga rabaa 0 ilaa 30 halka ragga da'doodu ay ka badan tahay 50 sanana laga rabo 0 ilaa 20 millimeter per hour. Caruurta ayagana iyo aadka u yaryar ESR-kooda waa inuusan 10 ka badan. Numberka intaa markuu ka sii batane waa inuu numberku maxaa la dhahaa markuu intaa numberku ka sii batay ESR-ka qof walbo dumarka da'doodu 50 ka ah intii laga rabo markii ka bato waxaa jiro inflammation. Sidoo kale ragga ayaguna da'doodu intii loogu talagalay 50 markuu numberkoodu 20 ka batan ayaguna waxaa jiro waxa la yiraahdo inflammation ayaa jiro. ESR test maxaa marka loola jeedaa macnaha haddii result-gii oo soo baxay ESR-ka maxaa uu abnormal u yahay dhakhtarkii kuu diray muxuu xaqiiqsanayaa marka haddii ESR-kaagu haa yahay waxaa lagu la xiriirinayaa waxyaabahan soo socdo ama waxyaabahan soo socda ayaa jiro infection ayaa jiro rheumatoid arthritis ayaa jiro ama rheumatism-ka waxa loo yaqaano
rheumatic fever ayaa jiro, qandho ka timaa xagga rheumatismka ayaa jirto, vascular disease cudurkan la yiraahdo ayaa jiri karo. sidoo kale waxaa jiro cudurkan la yiraahdo inflammatory bowel disease, waa cudur ku dhaco maxaa la dhahaa inflammatory bowlka ku saameeyo. heart disease ayaa jiro ama heart disease, wadnaha cudurkadii ku dhacay mid ka mid ah. sidoo kale kidney disease ayaa jiro, kelyaha in cudur uu qaba. sidoo kale cancer ayaa jiri kara asna. intaas aan soo sheegay haddii mid ka mid ah ay kugu dhacaan ESR-kaagu wuxuu noqonayaa high, rag ahaa ama dumar ahaa. sometimes sidoo kale ESR-ku aad ayuu low u noqonayaa, waxaana u wacan inuu jiri karo blood disorders sida inuu jiri karo polycythemia, sickle cell anemia iyo leukocytosis, abnormal increase of WBC inuu jiro ayaa dhici karto. leukocytosis waa inuu WBC-gaaga aad u bato. sidoo kale sickle cell anemia haddii ay jirto aad ayuu hoos u noqonayaa, waxaa la yiraahdo ESR-kaagu. sidoo kale polycythemia haddii jirto iyadana ESR-kaagu aad iyo aad ayuu hoos u noqonayaa. sidoo kale maxaa la yiraahdaa noocyada ama maxaa loo yaqaanaa noocyada ESR-ka. ESR test maxaa loo yaqaanaa noocyadiisa. ESR testiga waa laba nooc. There are two methods of measuring erythrocyte sedimentation rate. ESR laba nooc ayuu leeyahay, kuwaan waxaa la kala yiraahdaa kuwana waxaa la yiraahdaa Western green method ama fast detector. Western green method waxaa loo yaqaanaa noocan dheer ee tube-ka maxaa la dhahaa lasii dhexgelinayo caagada yarta cagaarka, sidaasaa loo dhahay green, Western green saas loo soo dhahay. waxaa kaloo loo yaqaanaa Katz tube loo yaqaanaa, waana 200 oo mililiter dhirirkeedu leeyahay 200 mililiter ayay la egtahay. waxaa la yiraahdaa noocan aad arkaysaan Western green method ama waxaa kaloo loo yaqaanaa Western green Katz tube loo yaqaanaa Western green Katz tube. tube-kan marka shaqadiisu maxay tahay, wuxuu store gareeyaa si vertically ah maxaa la dhahaa dhiigga, waxaana la fariisinayaa room temperature muddo 1 saac ah ayaa saas loo istaajinaya, la qotominayaa. sidoo kale tube-kan asne wuxuu markii aad dhiigga kusoo shubto Western green-ka blood-ka waxaa inaad ku sameysaa waajib ah mixed at the top of the sedimentation RBC is measured. saas haddii aadan u istaajin oo aadan qotomin sida hadda kaaga muuqato ma ku sameysmaayo maxaa la dhahaa in ay kala soocmaan serumkii iyo red blood cellskii, halkaasna ma dhacayo wixii la dhahaye settle ama sedimentation. tube-kan waxaa aad loo isticmaalaa testing method-ka marka la yiraahdo. midka labaad wuxuu yahay Winthrop method ama midka dadkeena u yaqaano raagiisana ku qoran tahay fast detector. ESR fast detector midka la yiraahdo ayaa methodkiisa waxaa la yiraahdaa marka la sameynayo Winthrop method. Winthrop method maxaa waa marka? Winthrop method waa mid la mid ah Western green method marka laga reebo tube-kan inuu yahay asigu 100 millimeter long and thinner inuu yahay, marka laga reebo inta kale way ka sameyn yihiin, marka laga reebo inuu 100 millimeter yahay oo dherer ah oo mid thinner ah oo soft ah, halka kii uu ahaa hore 200 millimeter midka la dhahaye Western green. Winthrop marka magaciisa kale dadku yaqaanaan waxa weeyaan ama lagu arkabo raagiisa fast detector ESR. tube-kan marka uu ka faa'iido yar yahay kii kale sababtu waxay tahay is less sensitive than Western green method, waa mid ka maxaa la dhahaa xagga nuglaashaha Western green-ka ka yar. ESR test marka labadaas nooc ayaa loo qaybiyaa, waxayna kala yihiin Western green method oo magaca kale loo yaqaano ah Western green Katz tube, kaasoo levelka blood-ka uu qaadayo ama tube-ka intuu leegyahay ay tahay 200 mililiter, halka Winthrop method uu yahay mid la mid ah Western green marka laga reebo tube-ka Winthrop ama fast detector-ka uu dhererkiisu leeyahay 100 mililiter millimeter long, thin uu yahay ka jilicsan yahay, halka tube-kan Winthrop method-ka ama fast detector-kan uu ka yara jilicsan yahay kana advantage yar yahay maxaa la dhahaa midka la yiraahdo Western green.
intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gudbiyo cashirka iska koobnaa ee ku saabsanaa ESR test. waana mahadsantihiin. wixii aan qalda shaydaan xaggiisa ay ka ahaadeen, wixii aan saxaana ilaah xaggiisa ka ahaadeen. biliis intaana cashir ka bixin waan kaa codsanay inaad subscribe inoo saarto cashirkan haddii ilaah yiraahdo. cashirada xiga ayaan waxyaabo badan oo laabka ku saabsan ku faahfaahin doonaa. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.